kulanti waan daawaday waxaan rajeynayaa inaad fiican tahay insha Allah intaa kadib mowduuceena markaan diyaarinayo waxaan soo xasuustay hal ku dhigdhaho lacagtu farxad ma keento ereygaas waxa laga yaabaa ama hadalkaas inaa maqashay muddo badan inta noloshaada soo taxnayd laakiin maanta waxaan rabaa inaan su'aasha ugu jawaabo horta farxaddu sidee u shaqeysaa qaabkee macnaha sidee loo farxaa sidee loo dareemaa farxadda insha Allah mowduuceena maanta kaga sheekeysan doonaa marka soo dhow intaa kadib 95% ama wax ka badan ama ku dhow jirka bini'aadanka waxa uu dareemo waa wax markaas la xiriiro hormoono ama waxyaabo maadooyin chemical reaction ama falgal kiimikeed uu jirkaaga sameeyo ay u badan yihiin sida la socdo marka su'aashu waxay ka taagan tahay marka farxaddu ma maado jirkeena ku jirtaa oo anaga fahmi la mise waxyaabaha aan haysano ayaa keena waa su'aal ma ogtahay u baahan jawaab marka bal aan isla fiirino insha Allah waxaa jirta maado la dhaho serotonin la dhaho oo ka mas'uul ah inaad farxdo inaad murugto inaad adiil ay ku sameeyeen maaha yani iyada haday yaraatay haday badatay ku xiriiran tahay ayaa jirta marka raaleehada hadii codkayga xoogaa uu khalkhal ku jiro qabow badan baa ay haya marka maadadaas hadii jirkaaga ku badatana oo ay nadiif si sax ah u shaqeyso yani farxadaada iyo moodkaaga uu saxmaya hadii si qaldan ay u shaqeyso ama ay ku yaraatana waxa dhacaya taas cagsigeeda marka maadadaas serotonin xagee ka imaadaa marka serotonin waxa sameeyaa mindhicirkaaga yar chemical reaction nolol maalmeedkiisa ka mid ahna waaye ma fahanti marka maadadaas ma ahan wax la xiriiro inaad dhaqaalaha haysato ma ahan wax la xiriiro inaad taajir tahay ma aha wax la xiriiro inaad baahan tahay inaad dhargan tahay wax la xiriiro ma aha waa falgallo uu sameeyo mindhicirkaaga ama mindhicir yarahaaga uu sameeyo oo aan ku xirreyn waxaad haysato iyo waxaad haysan waxay ku xiran tahay caafimaadkaaga oo kaliya marka haddii wax ka qaldama maxaa dhici kara marka kow waxay saameyn doontaa moodkaaga sida u shaqeeyo xaaladaada siday tahay wuxuu saameyn doonaa hurdadaada wuxuu saameyn doonaa sida dheefshiidkaaga u shaqeeyo taas oo laftirkeedu ka dhalan karo sida appetite-kaaga u shaqeeyo qofkan diisan dheefshiidkiisa sax u shaqeyn sidoo kale saameyn waxaa yeelan doona sidoo kale sida appetite u shaqeeyo wuxuu noqon doontaa mid markaas wax ka qaldan yihiin marka su'aashu waxay tahay marka siduu u sameeyaa marka mindhicirahaaga serotonintan waxaa jira unuga yaryar oo ay leeyihiin mindhicirka oo qaabilsan shaqadaas oo qabta shaqadaas oo cunada marka uu cuno ama jirkaaga cunada cuno oo systemka la soo marsiyo caloosha la soo marsiyo mindhicirka tagaan uu kala baxo maada ahaan kadibna wuxuu sameeyaa hadii ay ku sameeyeen inuu hawshaas u qabsado u bedelo markaasi maada chemical ah inuu u bedelo kadib wuxuu u diraa maskaxdaada si toos ah xiriir baa ka dhaxeeyo mindhicir yarahaaga iyo hadii ay ku sameeyeen maskaxdaada xiriir toos ah baa ka dhaxeeyo kadib toos baa maskaxda loogu gudbiyaa toos marka loogu gudbiyo kadib marka iyada jirka u qaybiso markaas baad farxad dareentaa markaas aad mood dareentaa markaas uu jiifka ka dhashaa hurdadaada waxaas oo meesha ka dhashaan appetite-kaaga inuu furmo waxaas oo dhan control-kooda halkaas bay ka dhashaan maadadaas oo chemical falgal kiimikeedka jirkaaga sameeyo ay ka dhalataa maskaxda bini'aadanka marka iyo mindhicirkaaga sidee ku wada xiriiraan waa su'aal moogta meesha ku jirta laftirkeeda su'aasha jawaabteeda waxay noqonaysaa toos ay wada xiriiraan isagoo maraya neerfayaasha la dhaho neerfa la dhaho hallow nerve iyo vagus nerve mina taqaanaan hadaa idin sharxay in kala ma garanayo ayuu marsiiyaa sidoo kale wuxuu marsiin karaa hormoonada jirkaaga falgala reactionka jirkaaga hormoonada qaabka uu saameeyo ayuu saas oo kale iyagana fariinta signalska si dhex marsiin karaa sidoo kale wuxuu marsiin karaa signalada immune systemkaaga difaaca jirkaaga soo u shaqeeyo dabcan maskaxdaada xiriir dhow ayaa ka dhaxeeya jirkaaga difaaciisa u shaqeeya maskaxda halkaas buu marsiiyaa markaasi loo helo maadadaas oo serotonintaas jirkana loogu qaybiyo haddii yaraatana sidoo kale fariin iyo digriin taas cagsigeeda ay u dhacdo marka haddii marka balance garoobaan oo ay toosaan oo xaaladaada 100% noqoto oo serotoninkaaga sida u soo saarayo mindhicirkaaga ay sax noqoto maxaa dhacaya saddex shay inay markaas ku hagaagsamaan mid waa ko inay moodkaaga saxmo sidaan soo sheegnay moodka uu saameyn ku leeyahay sidoo kale jiifkaaga ayaa saxmi doona sidoo kale waxaa saxmi doona dheefshiidkaaga haddii uu qaldamana taas cagsigeeda dhici karto kow anxiety baa dhici karo wax la dhaho oo markaasi kasoo horjeeda moodkaaga inuu saxmo waxaa ka dhalan kara poor sleeping oo ah markaasi hurdadaada inay yaraato waxaa ka dhalan kara digestive problems mashaakil la xiriira dheefshiidkaaga saas oo kale inay dhacaan
marka waayahay sidee u ilaalin kartaa marka caafimaadka mindhicirkaaga maadaama farxadaada noloshaada dhanba ay ku xiran tahay iyo moodkaaga inuu saxmo mindhicirkaaga marka waa inaad ku dadaashaa haddaniyo caafimaadka hawshaas la xiriirta jirkaaga caafimaadkiisa qayb ka mida waay mindhicirkaaga maadaama noloshaada dhanba farxadaada iyo reereyntaada iyo jiifkaaga iyo dheefshiidkaaga dhanba uu ku xiran yahay haddii waa inaad ilaalisaa caafimaadka mindhicirkaaga waayahay sidee loo ilaalin karaa kow waxaa loo ilaalin karaa waa inaad cuntaa cunooyinka fiberka leh sida markaasi waxyaabaha fiberka leh xariga leh ama dunta leh waxyaabaha fiberada la dhaho inaad cuni karto waxaa ka mid ah inaad cunto markaasi fermented foods waxa la dhaho cunada la qamiiriyo waxyaabaha la qamiiriyo tusaalaha caanaha fadhiyo baqay oo kale inaad cabto sida caanaha suusaca geela oo kale iyo waxaas fermented food la dhahaa waxaa la mid ah rootiga inaad cuntid oo maadaama muxuu ahaay cunto la qamiiriyo laftarkiisa ay ku jirto waxaa la mid ah inaad iska ilaaliso stresska faraha badan inaad iska ilaaliso waxaa la mid ah hurdo kugu filan inaad seexato 8 saacadood 24 saac ugu yaraan inaad seexato sidoo kale inaad samayso jimicsiga jirkaaga jimicsiga inaad ilaaliso inaad exercise samayso waxay ku xiran tahay inuu moodkaaga saxmo inuu hormoodkaaga saxmaan in caafimaadkaaga tamam noqdo marka waxaan markaa rabaa mawduuca markaan kusoo laabto su'aasha waxay ka taagan tahay dadka dhihi jiray lacagtu farxadda ma keento bal ka waran ereygaas erey science ama cilmiyeysan soo ma ahayn haa inaad sabool tahay iyo inaad farxadda waxba iskama gelin iskuma xirna dad waxaa jira saboola haddana farxaddooda ay 100% tahay waxaa jira dad taajiriina oo ay farxaddoodu 10% ka yar tahay sidaa daraadeed lama xiriirto inaad faraxsanaato inaad waqti qaadato inaad nolol fiican ku nooshahay inaad dhaqaale leedahay kuma xirna waa inaad markaas noloshaada ku qanacsanaataa naftaada caafimaadkeeda aad ka fikirtaa oo aad mindhicirkaaga ilaalisaa intaasaan kusoo koobiyaa mawduucayga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu